qodobkaana rabaa inaan idiin soo gudbiyo insha allahu tacaala. dadka daadooda fiican tahay ama caqligooda fiican yahay ayaana kula hadlayaa. waa arrin muhiima, arrinkan si fiicanna ila dhegeysta. mararka qaarkood waxaad dhihi kartaa mawduucan oo kale in xoogaa bulshada yaro laga dibdhoga ayaa ku roon tahay, laakiin markaynu fiirino xaaladaha dhacaya ee waxaa jira waxay u baahan tahay in aynu kula hadalno dad badan annagoo nafteena ka bilaabayna qodobka kan. inyow iska jir xaaskaada inaad u galmootid ama aad ka raadisid howlahaas xaaladan markay ku sugan tahay. hadalkani wuxuu khuseeyaa ku socdaa dadka isqaba, kuwaan isqabin ama iskaa bilowda xoogaa ha nasteen, meeshaan ha iskaga baxeen. markaad xaaskaada ku xanaaqdid laga yaaba inaad qacan u qaadid. ha isku day niyahow, hana haddii alla kuu ruyo niyadda gashan inaad ka codsatid xaaladii sariirta. hana dhihin rasuulka ilaahay baa yidhi sala allahu calayhi wasalam, haweeney kasta oo ninkeeda firaashka ugu yeerto hadday diiddo malaa'igtaana xaalada sidaasi ha cuskan. xaaladaasi xadiisku ma khuseeye, bal waxaaba laga yaabaa malaa'igta adiga inay ku nacalado. rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam nolosha dhinacyadeeda kala duuma wax badan buu nooga sheegay. xaaskaada intaad qacan u qaadid haddana hawshaasi ha ka damcin, waayo markaa waxaad dareensiinaysaa inaad ihaanaysanaysid. jirkeedaad doonaysaa, waxaad ka dhiganaysaa bahal danta lagu guto, nafteeduna waxay taallaa lugahaada hoostooda. ninyow xaaskaada ha dareensiin xaaladda noocaasa inay tahay oo keliya meesha shahwadaad ku gudatid, dareenkaadana aad ku damaysid, wax kasii dambeeyana haysa jirin. arrimaha noocaasa inaad xaaskaada ka dalbatid, shucuurteedii iyo ixtiraamkeedii iyo dadnimadeedina lugaha hoostooda aad gelisid oo aad bahdishid ma ahan walaalle. sidaa darteed baa rasuulkaadii kaa reebay calayhi salaatu wasalaam inaad xaaskaada sida addoonka intaad u garaacdid kadibna aad u galmootid. sharcigeeda arrintaasi aad iyo aad buu uga dayri, bal rasuulka ilaahay wuxuu la cajabay oo su-aal iska weydiiyey arrinta noocaas. nin baa intuu xaaskiisa qacan u qaado sida addoonkiina u garaaca kadibna dhahaya hawshii caqli galba maahanba. waxaa taa lagu difaacaya waa haweenayda, waayo shucuurteeda waa jabsan yihiin. haddii markaa waxaa ugu dartid macnaheedu waxa weeye sidii alaab la isticmaalo guriga taalla. intaad xaaskaada qacan u qaadid oo garaacdid oo waxaa noocaase foosh xun ku kacdid, kadibna habeenkii aad timaha soo qabsatid adoo doonaya hawshii hoose inaad ka gudatid, ogow haddaad sidaa samaysid inaad tahay xayawaan, bal waaba ka liidataaba. waxaad oga duwan tahay ma lahaan dugaaggaasi duurjoogta ah. xaqiiqo wey arrinkaas. xayawaanka duurjoogta waad aragteen, mid walba naftiisa waxay rabtaa unbuu raadinayaa bas, mid kale kama fikaro. nimanka qaarkood waxaa laga yaaba inay aaminsan yihiin haddii haweenayda ficilkaasi kula kacaan in uu heshiisku ku imaanayo in uu galmoodo. maya, marka hore hagaaji, raaligeli, la heshii, kab oo waxaad gaarsiisay ka kab, wanaaji, ka farxi, ka qosli, kadib hawshaa timaado. macquul ma ahan, suurtagalna ma ahan sharciga iyo caqliga dhexdiisa inaad xaaskaada subaxiina garaacdid ama ihanaysatid, galabtiina aad ka daydid wax. inaad hawshii sariirta xaaskaada ka raadsatid, dhaawac aad u geysatay iyo ilintii aad u geysatay iyo jabkaad u geysatana uu kasii muuqdo. arrin macquul oo isqaban karta ma aha. khaladka noocaana waa khaladka ugu weyn ee raggu inta badan ay ku dhacaan. iskana ilaaliya oo ha ku dhicin in hana sahlan. arrinkaasi arrin sahlan ma ahane. ninyow xaaskaada ha kula dhaqmin sidii iyadoo ah gabar shaqaalaha guriga kuu joogta. dumarkeenu waa xor, waxaa lagu leeyahay ayaa lagu leeyahay, waxa ay leeyihiinna waa leeyihiin. ninyow waa ismatalin sida adoo jooga suuqii jaahiliyada iyo caqligii jaahiliyada hore jiri jiray. ninyow intaad xaaskaada u awood sheegatid kadibna calaaqada hoose ha ka dalban oo ha ka raadsan, waayo waxay ku tahay arrinkaasi arrin niyad jab kusii noqonaya. dhibaatadaad u geysatay ayay kusii darsamaysaa dhibaatadan. marka iska jir oo iska jir xaaskaada calaaqada hoose ama sariirta inaad ka dalbatid iyadoo xaaladaasi ku jirta. qalbigeeda aad dhaawacday ha sii dhaawicin. inaad soo kabtid oo ka farxisid, ka qoslisid ma ogiye. aad baad mahadsantihiin.